maanta oo ahayd Agost 17 2019 maxkamadda sare dowladda Puntland waxay u fariisatay garmaqalkii dhageysigii kiiskii Caaisha oo ay racfaan ka soo cabasho u qaateen saddexdii xukuumana labadii maxkamadood oo hoose ay ku xukumeen. maxkamaddani waa ka duwaneed labadii maxkamadood oo hore waayo xukuumanayaasha سيبا حكومناها كواد عبد الفتاح قرال وحو كل نقطة محكمة دورت إذا كعدي إنه عايشة كفصدي أيو عدي عبد الشكور محمد ديجانا وحو عدي لعقتي قبل وكو إنكري إنه بحيي السجل لغصه شوي لبدي محكمة ظاهرة قبل الربع عايشة إن لغوه وأن لا أرك oo aysan qodin ehliyadooda isaga iyo groupkiisa ay qodeen ay rabeen inay ku qoriyaan iyo wuxuu qiraal ku noqday in lacagtii mobilkiisa lagu soo shubay taasina waa guul iyo cadaalad ay heshay Caaisha maanta iyadoo qabri ku jirta yaa qiraal ay heshay waxay heshay qabriga lagu qarin lahaa cidii lacagta bixisay maxaa kale wixii su'aalo diyaar baan ووردنبيادنا سو غاري وردنبياد haduu ku soo gaarana hay'adaha amniga ayaan amri doonaa in la soo qabto ninka isaga waana fududahay hadii la soo qabto dhacana laga qaadaya marxuumada dhacankeedana waa la hayaa hadii isla falgalaan shariicada iyo qawaaniinta dalka wax u degsan ayay marayaan haddii isla falgali waayaan todobadii hore sida loo sii daaya loo sii deenaya kalsoonku ma la socdaan ninka hadda meesha ku sugan wadanka gudihiisa uu joogay macnaha ka maqan annagu xeerlaalin iyo maxkamad haddaan nahay eedeysanayaasha ma soo qaban awaamiir baan bixinaa ciidanka amniga yaanu amri doonaa kadibna ciidanka amniga kala xiriiri doontaan haddii alle ninka la waayo oo kale haddii ma annagu amar baan bixinaynaa in la soo qabto waqtigeeda hal la gaaro kalsooni intee la ag baad ka qabtaan inaad ka gudbi doontaan ma aha su'aal anigu aan ka jawaabi karo macnaheedana aan fahmi karo maxkamadda go'aankeeda ayadaa u madax bannaan sidii labadii maxkamadood hore ugu madax bannaanayeen